السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوضيال كسو دوادا برنامج كيني طاهر إيو دالكو هويو برنامج كاسي آلابا وحويدين كيما دا دالكا بقرتو يدا إنجليسكا كارهانا مقالة بيميغام. daawadayaal barnaamijkeeni daahir iyo dalka hooyo toddobaadka kan waxaan ku soo qaadan doonaa shir aad u ballaaran oo ka dhacay magaalada Birmingham oo ah shirkii qaaraanka loogu ururinayay wadada dheer ee isku xidha gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco iyo gobolka Sanaag ee Ergabo taasoo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo uu dhagax dhigay markii uu gobolada bariga uu kormeerka uu ku mareeyay iyadoo halkan ay yimaadeen guddi uu madaxweynuhu uu magacaabay arintaasi iyada ah oo dabeedna halka kan guddigaasi ay ka sameeyeen isla markaasina ay guddida magaalada Birmingham isku xil saareen sidii hawshaasi ay uga madhidhan lahaayeen magaalada Birmingham oo iyadu markaasi qadatay $150,000 ayaa maanta sidii loo qaybin lahaa iyo sidii hawshaasi loo geli lahaa ayaa shirkani maanta uu ku saabsan yahay waxaan ku wareejin doonaa afayeenka shirka oo idin xiriirin doona mudane Saciid Suldaan Kabadhe Saciid kusoo ralaada Suldaan Saciid Kabadhe kusoo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay daahir wada socotaan daahir wuxuu duubayaa barnaamijkii uu caanka ku ahaa daahir iyo dhulka hooyo markaas isagana kulay wiilo wadaya hawsha waan filayaa mar kale dhamaantiin mudane iyo marwooyin akhyaarta sharafta leh aad baan idinku soo dhaweynayaa xafladan qiimaha iyo qaayaha leh waa xafladaha bay ka mid tahay xaflad la isugu yimaado tii ugu wanaagsaneyd runtii waxaynu baranay xaflado nooc gaar ah laakiin waa tanta asalka baan qabaa anigu ee dalkeenna dhismihiisa wax ka taraysa haddii ilaahay ka dhigo waxaa mahad gaara runtii iska leh guddida aynu xil saarannay mashruucii ugu weynaa dalka oo matalaya Birmingham hawsha sida wanaagsan ay u wadaan aad bay ugu mahadsan yihiin iyagaana isku soo dabriday caawa xafladan iyada iyaga ay suuqin yeeray iyagoo doonaya inay halka xaal marayo iyo hawshii ay bilaabeen inay iyagu inaga warbixiyaan haddaba si aynu barnaamijkeena u furanno maadaama aynu nahay ummad islaam ah waxaynu ku furanaynaa barnaamijkii inoo furmayaa aayado quraan ah oo inoo akhriyo sheekheena sheekh Mustafa Salaan فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم إلهي آياتها قرآن كاين وقف على دمانتين طبعا سان هرب وشيء برنامج كأنه ونوبلا مي وحينو ويرينا ومكاينو جعلنا هينا إنه كفرنا وضي كميد وضياشة أمان الله سلطان إن لا تشوجا سلطان عبد الله محمد سلطان ومثل يوضياشة مجال برمجان هدي لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون dhammaan jaaliyadda halka ka soo qayb gashay maanta odayaasha guddida wadada haweenka dhalinyarada culimada aqoon-yahanada iyo cuqaasha iyo indheergaradka kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas ka bacdi hawsha aynu maanta isugu nimi oo ah wadada gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag isku xiraysa ama magaalada Burco ilaa Ceergaabo isku xiraysa hadii si kale loo dhigo waxay ahayd hawl muddo badan soo socotay qaabkeedii wacyigelinta iyo markii xukuumaddu ay dhiirigelisay in wadadaasi wax laga qabto hawsha muddo badan baa la soo waday guddiyo badanna waa loo sameeyay magaalada Birmingham ama West Midlands dadka jooga iyo areadoodana iyagana guddi ayaa loo sameeyay si loo ururiyo qaaraankii loogu talagalay ee jaaliyad ahaan ay qaateen dadka reer West Midlands ama Birmingham ay qaateen ee 150,000 ahayd maanta ujeedadu waxa weeye in la faahfaahin laga bixiyo qaabku sidoo noqon doono xubnihii madaxda guddida oo ahayd iyo odayaashii waa joogan dadka qaar badan baa cudur daaro sheegtay sida daraadeed waxaan jeclaan lahaa in guddidaasna insha Allah lagu kalsoonaan doono wadaduna sida shicaarkeena ku qoran ama slogankeena ku qoran waxa weeye wado sadaqa jaariya ah oo ibn aadam si nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa ku sheegay hadii ay geeriyoodaan qof walba amalkiisa ayaa ka hara kaasoo sadaqada jaariyadu ay kamid tahay wax ku soconaya qofkii mara wadada gaarigii mara ajar ayaad ka helaysaa inta lagu socdo oo wadadaasi ay jirto dhanna geeridaada ka bacdi wixii aad ku darsato hal bowna ha noqdee waa wax ku jiraya ilaa aakhira oo adiga kula soconaya ilaahayna uu ka abaal marinayo taaynu isugu nimi muhiimadeedu taas weeye iyadu way ka madax bannaan tahay wadadu siyaasadda way ka madax bannaan tahay waxyaalaha kale hadda la isku haystay xisbiyada way ka madax bannaan tahay xirfadda kale ee dadku ay yaqaaniin iyaduna ku saabsan xifaalaha iyo ximaartanka ka dhaxeeya shacabka dhexdiisa way ka madax bannaan tahay wadadu tan kale Soomaalidu ay aad u isticmaashee reernimada ah iyo qabyaaladda iyadu waa shay madax bannaan oo aan doonayno markaa bulshada inaan taageero uga raadino oo qulubta dadka lagu kasbo sida daraadeed iyadu waynoo madax bannaan tahay hadda cid doorasho ku galaysa iyo madaxweyne isku sharaxayana uma jeedno oo inooma muuqato cid kale oo gooni u jiidanaysana ma aragno hadda laakiin shacabku waxaan ku guubaabinayaa dadku waa u xor qofkii su'aal qaba ama wax ku jiraan inuu weydiiyo dadka taasna in cuqdad laga qaado maaha qofkii raba istifsaar ama inuu wax cadaysto guddida u jawaabaysa guddida wadada u jawaabaysa guud ee qaranka kuwa magaalada tanaya u jawaabaya waa loo jawaabaya qofkaasi waa inuu wixii uu qabo aanu qalbiga ku haysane uu sheegaa oo yiraahdaa sidaas iyo sidaas iyo sidaas dabeedna jawaab waafiya la siiya taas iyadu cudur ma laha laakiin waxa cudurka leh waa xanta tashwiishka iyo in dhibaato la geliyo aadamahana maanta waxa ugu fiican waxa iyagu gacantooda ay ku qabsadaan wax dad kale ay ku keenaan ama midowga Yurub uu keeno waa wax aan waxba taraynin oo muddo dheer qaadanaysa shuruudana ay ku xiran yihiin laakiin waxa aynu inagu la baxno wax shardi leh ma aha waa waxaad adigu dhagaxa dhiganaysid meel waxaad adigu sameynaysid weeye iyo dariiqa sameynaysid sida daraadeed dadkana waxa rabaa inaan ku guubaabiyo in lagana qayb qaato laguna soo dhawaado guubaabadeedu waa intaas waqtiguna way nagu ciriiri wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waynu wadaynaa waa jiidaynaa golahan dad badan baa meeshan ku qoran runtii laakiin waxaan halkan ku yara arkaa oo aan arkaa inay haddii jeeshirarkan oo kale markaan isugu nimaadno
dumarka waynu ugu yaraynaa waxaan arkaa inay dumarku yar yihiin laakiin bal waxaan isku dayi doonaa inaan u hiiliyo iyaga maanta haddii ilaahay ka dhigo waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha guddida waddada ee west midlandka guddidii aanu dooranay waxa weeyaan axmed maxamed xuseen oo axmed kaysan loo yaqaano بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين marka hore mudanayaal iyo marwooyinba dadkiina naga ajiibay eena maqlay yeeritaankii aan isugu yeedhnay aad baan idinku mahadcelinayaa aqbalaadii aadna aqbasheen iyo kasoo qaybgalka wanaagsan ee aad samayseen aad baan idinku mahadcelinayaa marka xiga kolle iyadoo dadku uu badan yahay haddana waxaan doonaya in yaroo xaggii guddi ahaan iyo habkii aan u dhignay ee aanu u galnay iyo waxyaaba badan iyo wixii noogu kalifay iyo lacagta aynu qaadanay intaasuna inaan tilmaan ka yar bixiyo marka koowaad waxa halkan aanu ka sameynay midlandka 17 xubnood oo marka hore rag bay ahaayeen rag baanu ka wada dhignay 17 xubnood waxaan u sameynay guddidii maamul 5 fulin ah ayaa ka soo baxay 5 fulinta ah anigoo axmed maxamed xuseen waxay guddida dooratay in aan guddoomiye aanu noqdo guddoomiye ku xigeen cali ciro oo imika ku yar mashquulsan xagga qadada ayaa guddoomiye ku xigeen ah allahumma salli ala maxamed xuseen baan xoghay xuseen baan malaha wada taqaan xawaalada mustaqbal اللهم صل على محمد بشير عبدي وداد خسنتي بشير مالها وضو قرنسان وانك هالكا كوفيد عدي بشير ولا ددك استصدو والله مارمان الله اركو اللهم صل على محمد محمد اسماعيل بخير وليك odayga halka taagan waxa weeye xiriiriyaha guddida inta ka bacdi midlandka waxa aynu qaadanay 150 kun oo uma ku jiraan raalli hada dumarkii ayaa ka tagay dumarka waxaanu nidhi maanaga guddidii sameeyna mise guddi baa soo samaysanaysa waxay noqotay in ay yiraahdaan dumarku guddida annaga ayaa soo sameysana si aan u noqon waxa annaga loo magacaabo dib baan isugu celinay marka xubno imika horyaala wana loo soo gudbiyay hayashayna loo soo dhameystiro guddida haweenka ayaan jecel lahay marka dhameystirkeedii ayaan idinka sugayn haddii ilaahay laga helo tii guddida dumarka intaas ka baxay waliba iyadoo muddada aan leeyahay bal wiigan haddii alla ka dhiga idinku saarka oo wiiga dambe magacyadiyo tafatiran soo gudbiya intii guddida noqonaysay intii lacag ururinta ka qayb galaysay sidaas u qaybinayseen guddiyada caynka kolley dumarka intii noo timi waan ka wada hadalnay iyo habka ay u soo sameynayaan tii guddida haweenkii waxa weeye taa allahuma salli calaa maxamed waxaaynu qaadanay lacag ah 150 kun oo pound haddii aan midlandka nahay dollar haddii aan midlandka nahay كل بقول يحاول بنقص بقول يسام كل بلاستيت كل ملهاس هذه حاجة كلا له رجع باونت العكتة سيدي أينو وقبح لهين وقتها يو رورنتا يو اسكسود بريد كذا وحويان مركي عن ضاد يفلنغين ده كقلي وحي نقطين أينو وقايبنا كل يشان بقول أو مدح سيدي أنا قصور الله معناها كل يشان بقول أو بحية ما هرهير هبلو كان ما هو حكى مقالة قبل كده أنت نصور لستينه إن أنا مدح يودقنا مدح يصو أحب بحية
marka 1500 oo bixiye Midlandka laga soo waayay maayo suurtagal waxa ah inay ka bataan dad ay wax ka badan ay bixiyaan dad la rajeynayay inay bixinayaan laga waayo marka isku celcelin waxaan ka dhignay inaan 1500 oo bixiye aan ka helo Midlandka iyadoo aan u dhaafayo gudida inta kala hadalka sidii aan u sameynay iyo tilmaanta gudi ahaan gudida aanu sameynay iyadoo markii hore 17 xubnood ahayd markii dambe 5 xubnood oo fulin ah laga soo saaray sidaa weeye tii haweenkana anigu mar labaad ku celinay waxa weeye sida ugu dhaqsaha badan weegan idinku sarka wixii ka dambeeyana hadii la ka dhigo waxaad noo soo gudbisaan idinka oo dhameystiran hadii la yiraahdo si ay meel uga wada jaan qaadno lacagtii waxaa la bilaabay waana socdaan habka loo bilaabay iyo sida ay u socdaan iyo waxyaabaha lagu bixinayo iyo waxa aanu idinku daryeelayno wixii aad bixiseen aanu shakiga uga saarayno in cid gaar ah oo ku soo duulayso oo qaadanayso jeebad ku ridanaysa aanay jirin laakiin ay galayso dhagaxii iyo daamirkii wadada la dhigayay wadadana ay noqonayso ballanqaadkii saaha ayaan ku qaadnay sida ay ugu hirgal lahayd na waxa weeye waanu dinahaynaa tafaasiishii waanaan tusaynaa haddii alla ka dhigo iyadoo layga dambeeyo waxaan idinku soo gulaanadayaa aad baan idinku mahad celinayaa mudanayaal iyo marwooyinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay axmed maxamed xuseen axmed kayse gudoomiyaha gudida West Midlandka ee wadada Eergaabo haddaan arkaa dhinacii gudida dumarka waxaa halkan igu qoran waan u yeerayaa Farxiya Cali Gaardiye ayadana bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga la yiraahdo Farxiya Cali Cilmi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in maxay haytay muddo badanna imika waanu ku jiray sidii aanu hawshan aan wax uga qaban lahayn aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay waan idinku mahad celinayaa sida uga soo qayb gasheen haween ahaana diyaar baan nahay qaybta nagaga aadan anaga marka dhammaan waxaan idin leeyahay arintani waa sadaqa tijaariya reeber mahan hadaynu nahay wax kasta waynu qabsan karaa hadaynu wada jiro marka aad iyo aadna waxaan u rajaynayaa inaynu wax wada qabsano taa iyo wadooyinka kale mid walba inaynu dhameystirro waa salaamatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dumarka markay dib u dhiska tahay runtii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وان السلام يا رجي الدمر إلهي بام مهدله مركه هوري نقدر جد الإسلام مرلبات كنا واحد ده مهدله جد ده سوق القابس شركا عاد بان يدينكم هاد علينا وحوي بس الديك إيه مهمة بيليهين وحين يسقوني إنه هالكانوا وضع فردية سلديك وحوي الدين وضدا إنه سمينه وضدا إنه قد أنت إنه كشرته dadkeena degan ee kala daadsan ee dhibaataysan ay danteedu ku jirtaa ummadna dadkeena oo kala wuxuu qabtay cidina wax iskama qabsoomaan dhulka dadka ka dhasha ee ayaa wax ka qabta dawladna uma maqna cid kalena uma maqna inaga dalka u maqan waynaynu qaban karnaa anigu waxaan 150 kun in 150 kun oo pound laga dhigaabay ku wanaagsaneyd waana iga dhab waayo dadkeenani waxa weeyaan dad muhaniyiina dad wax bixiya arinta meesha taalaana waa arin la wada doonayo oo qof waliba niyad wanaagsan uu hayo la soo dhaweyn karo waa halbowlihii Soomaaliland wadada Eergaabo dalkeena wadadaas kala go'doomisay runtii anigu wadada waan marayo in November baan soo maray sanadkiina dhaafay dhibaatada ay leedahayna waan garan karayaa burco ilaa Eergaabo 15 saacadood baa loo kala socdaa hadday laami tahayna waa la garan karayaa inta loo kala socon lahaa marka sidoo inankaasi sheegay 1500 ee qof ka badan baynu heli karnaa hadii aynu wixii inaga soo go'aan inaynu bixino waxa muhiim ah inaynu niyadii iyo ahmiyadii aynu la nimaadno iyo ficilkii waxba ma qabsoomaan haddaan ficil iyo niyad jirin
marka lacagtu jeebabka inoogu wada jirtaayay rag iyo dumar dee waa inaynu jeebabka ka soo gurno waxaanan ogahay oo anigu aan ogahay inay lacagtaasi soo baxayso Midland waa meel weyn Birmingham qura 150 bixin karta bilaahi caleeg aynu lacagta bixino niyadan ku bixino degdegan u bixino wada qabsi aan ku bixino dadaalan ku bixino walillaahi tawfiiq waxa weeye aad bay maasayeen qaybta dumarka runtii waa arkaysaan diilo badan bay inoo geliyeen ceelno ma qodna ciidino ma maqna waxaan u yeelayaa oo odayaashan ku soo noqonaya Cabdi Khaaliq Sheekh Xusmaan oo kamid ah odayaasha Birmingham isagana kelmadiisa leh fadlan بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha sharafta leh ee reer Birmingham ee lagu yaqaano fahalnimada duqeyda isugu jira dhalinyarada dumarka culamaa diinka aqoon-yahanka dhammaantiin waa salaamantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta dabadeed wadada ceergaabo iyo isku xidha Burco isu sheegi mayno marka halkan weynu in dooreemka soo socotay intii martayna way marto way taqaanaa intaan aqoonina wadankeena qaybta u weyni waxa weeye xagga wixii Burco ka sii xigay ilaa ceergaabo ayaa wadanku u weyn yahay galbeedka wuu soo ururaa khariidada marka la eego jamhuuriyadda Somaliland marka anigu waxaan ku tilmaami lahaa wadada ceergaabo iyo Burco isku xidha waxa weeye wadada wadankan aynu joogno Ingiriiska wada jirta Ingiriiska isku xidha waqooyiga ilaa iyo koonfurta waynu wada garanaa M1 baa la yiraahdaa rag baabuurta wada aad u yaqaana M1 teenu waxa weeye wadada ceergaabo iyo Burco waxa loo sameeyaa wadada caynkaas oo kale waxa weeye wadanka horumarkiisa iyo xiriirka gobolada xiriir in goboladu ay yeeshaan isgaarsiin wadana horumarkiisu kama horeeyo ilaa uu helo isgaarsiin haddii qaryad yari ama tuulo yari ka xanibanto ka fog tahay waa wax ka maqan wadan wuxuu ku faanaa infrastructure-ka uu wadanku leeyahay siduu isu gaargaari karo waayo gobolba waxba ka baxa gobolba khayraad buu leeyahay ka kaluu ka iibiya saasa horumarka wadanku uu ku fidaa waxaan idin sheegayaa bani aadamka ilaahay abuuray kartidiisu way badanto culimadii baa joogto awood badan buu bani aadamku leeyahay ilaahay siiyay oo aanu siinin makhluuqa kale oo waxa kamid ah maskaxda xoog bani aadamka waa lagu xoog weeyay makhluuqa oo xayawaanka inaga xoog weeyay laakiin waxaynu ku dhaanaa xayawaanka ilaahay naga mudo waxa weeye aqliga iyo garashada aboorka ugu yar waxyaalaha ugu yar ee makhluuqa ilaahay abuuro wuu isu tagaa wuxuu sameeyaa baasha dudumada la yiraahdo ayuu muddo gaaban ku sameeyaa inta leegtayna qaar baa aadyaab sadharkooda inta ay leeyihiin waa awoodda aboorka intuu leegayna waa arkaysaa bani aadamku hadduu isu tago oo wax uu muwaafaqo leeyahay oo wax isla ogolaado wuu samayn karaa waxa kamida waxa maqasheen ama iskuulada aynu ku dhiganay waxa jira 7 waxyaalood cajaa'ibka dunida ku jira waxa kamida al-ahraamta Masar buurahan ay dadka loo dalxiiska tago beriga may haysan tiknoolajiyadan wax lagu dhiso haddana way dhiseen oo aqli bay ku dhiseen intay leegtahayna waa aragtay weynaanteeda bani aadamku markuu aqligiisa isu geeyo iyo awoodiisa iyo markaa wuxuu hayo markuu isu geeyo wuu waxbuu qabsan karaa waxaan idin leeyahay reer Birmingham $150,000 dukaan yar oo Hargeysa ku yaala ama Burco ku yaala ayaa laga yaabaa markaan tagno wadanka gudihiisa in lagu yiraahdo $150,000 weeye raasamaalka dhex yaala inagoo Midland oo ballaarka inta leeg tahay aynu garanayna $150,000 durduraynu iskaga bixin karaynaa sidii inantu sheegtay Xaliimo haddii waxa weeye qofkiiba waxa qaban kara waxa weeye inteena qudha ay caaw hadaynu xukunno wax weyn baynu kicin karaa waxaan leeyahay
wadadu waa halbowlaha wadanka marka aynu isla ognahay ragga aan ka hadlayo fadhi ku-dirirkeena aynu isla ognahay waxa lagu tilmaamaa had iyo jeer qofka ama waxmagaradka ama had iyo jeer horumarka aad moodo aanu kala garanaynin wadanka wixii horumara iyo wixii dhibaya waxaynu nidhaahnaa wadada tan maxaa ceergaabo maxaa tan kaleba loo sameyn waayey waa fadhi ku-dirirkeena waxaynu nidhaahnaa maxaa waxa weeye wasiir hebel xibsi baa lacagta u tegaysaa wasiir xibsi ayaa qaadanaya wasiir xibsi waa muwaadin ka mida muwaadiniinta berri buu iska tegaya shaqadiisu ka dhammaan kartaa wadadu sida way oolaysaa xibsi qaadan maayo wasiir kalena qaadan maayo marka waxay ila tahay in aynu horumarka wadanka ayay ka mid tahay aynu gubaaba way soo dhammaantay anna midhkayga raacsanaya caawa inagoon xisbina u hadlaynin sidii inantu sheegtay halkan ka sheegtay qabiilla aan u hadlaynin waxa weeye haddaynu si kala garan weyno bal marba meel aynu isugu tagno marba mid aynu dhammayno wadooyinka sida aynu u kala baahannahay marka priority waxaanu siinaynaa wadada ceerigaabo oo wado runtii aada u halbowle ah ayaanu siinaynaa inta kale waynu dhammaysan karaa waxaa iska jiraynaa had iyo jeer dadka warxuma tashiilka ah ee carqaladaha ku samaynaya waxla wixii aynu soo hindisno ah ee horumarka aynu u hindisno dadunba haddana ka hoos shaqeeya oo isku daya inay carqalado keenaan waxay la tahay inaynan dhag u dhigaynin aynu caawa diyaar u nahay haddaynu reer birmingham nahay 150 kaleynu ugu xukumay inaynu sida ugu dhaqsaa badan u gudubno sidaas waajib maynugu tahay ma kari karaa intaa waynu ballan qaadaynaa caawa 150ka rag iyo dumarkuna ha galaan dumarka ha galaan aqalada ha galaan ragguna waxa weeye iyaguna maherad iyo makhaayad iyo mafris iyo intaba la isku kiciyo waxna waa inaynu haddaynu daacadnahay oo aynu wada jirro inay dhammaanayso ilaahayna haynala guul galo hayna garab galo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عليكم السلام عبد الخالق aad buu mahadsan yahay عبد الخالق waxay noo socota shirku waa laba qaybood runtii mana kala lihin way qof walba waa open weeyaan shirkani waa shir furan oo aynu naaqishayno sidii aynu hawsha iyada wada geli lahayn guddidu way noo soo bandhigtay warbixinteedana dhammaysanaynaa kadib dadka shacabka waa u furan tahay marka haddii ilaahay ka dhigo in yar baa inoo hadhay waxaan u yeedhayaa ubucdii warbixinta waxa weeyaan xidhiidhiyaha guddida maxamuud ismaaciil barre ayaan u yeedhayaa runtii nin aada u firfircoona بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaan mahad u soo jeedinayaa dadweynahan sharafta leh ee naga soo ajeebay dacwadii aynu wada lahayn ee ahayd sidaynu dardargelintii dhisida wadada ceergaabo waxaan kaloo u mahadnaqayaa TV-ga qaranka Somaliland oo runtii u heelan hawlaha wadada oo runtii hormoodka ah waxaan kaloo mahad kale u gudbinayaa TV-ga Somsat oo runtii xag technicality caawa iman kari waayay laakiin la shuraakobaya Somaliland kafarka xafladan waxaan kaloo u mahadinayaa marti sharafka iyo madaxda guddiga halkan fadhida odayaasha runtii warbixintii iyo guubaabadii waa la dhameeyay hadallo badan oo ahaa runtii عبد الخالق baa ka dhawaajiyay oo dhinaca infrastructure iyo ahmiyada ay wadooyinku leeyihiin waxaan u galayaa in yaroo dhameystira oo ah hawsha sida loo galayo iyo balqaabka aanu guddi ahaan aanu u galayno waxa iyaduna xusid mudin in arrintan in la wada leeyahay runtii qof guddidu ma koobna ma xadidna waxa weeyaan qof allaaliyo qof kii arrinta u diyaaro uu soo gali karaa number go'an maaha guddidu intay doontay noqon kartaa marka way furan tahay guddida runtii xubinimada guddida qof allaaliyo qofkii aanu ka dareeno inuu firfircooni waayo waa muxuu ahaa waxaan waa arrinta waa hawsha horaanteedii inuunba had iyo goor guddi lagu magacaabaa intaasu ma aha inta ugu maskax badan ama ugu fiican ama ugu fariisan waa la bedeli karaa dad kale waa lagu soo kordhin karaa marka wadadan waxa weeyaan wada taala dadka Soomaaliland oo dhan qof allaaliyo qofkii in yaro ama hawla ama xiisaynaya way u furan tahay runtii
waxaanu markaa arrimaan yaryar baanu halkan aan ugu talagalnay waxaan u samaynay rasiid book marka hore horta marka la leeyahay Midland halka haddaan yara caddeeyo waxayna wehelisaa magaalada la yidhaahdo Leicester iyo Coventry iyo Wolverhampton marka masha Allah dad badan baa ayna kala jooga Coventry marka guddida laftooda in lagu soo daray iyaga laftooda hawsha waan ku jiraa oo Midlandska shirkii hore way qolada Leicester wayna kala qayb gashay hadeerna waa dad ina kamid ah marka inaga ina xisaabsan taho guddida guud ee wadanku saas u qaybiyeen magaalooyinka isku dhow ayay israaciyeen marka waxayna raacsan Leicester iyo Coventry iyo Wolverhampton marka waad qiyaasi kartaan ballaarka inta la eg tahay arrimihii hore Cabdikhaalid ka dhawaajiyay taa dib ugu noqon maayo marka waxaanu samaynay customized receipt book oo aanu ugu talagalnay wadada Ceergaabo marka qof allaaliyo qofkii ku tabarucaya wadada waxa la siinaya receipt already waanu bilownay dadku lacagta way dhiibeen dad badan rasiidkiina waanu siinay marka waxa weeyaan laba qaybood oo intaanan rasiidka tafaasiisha u gelin waxa guddida weheliya waxaanu ka koobanahay guddi dumar iyo guddi rag marka already waan u maranayaa guddida dumarku inay iska dhan tahay marka hawsha waa wada gelaynaa waxa kaloo hawsha nagala qayb gelaya muxuu ahaa dahabshiil ee jannada ay ku leeyihiin Midlands khaasatan magaalada Birmingham marka waxaanu samaynay meelo xadidan oo waxa jira qof guddidu lagama yaabo dadka inay wada kafargareeyaan ama marmar ba laga yaabaa inay campaign qaadaan laakiin waxa jira meelaha midlan nasiib wanaag Bashiro kala khasnajiya oo ka mas'uula xubinta dahabshiil Coventry isaga midlan ka mas'uula halka waxaan ku dhajinay poster marka posterkaas waa mark ama waa label marka qolooyinka lacagta la geynayo dahabshiil waxaan ugu talagalay posterka already waan ku dhajinay dhowr marka wadadaas waa real suurada ana qaaday waxa weeyaan cadaad kulaale taasuna waxaan doonaynaa siday noqoto runtii u dhow marka ma aha laakiin rag meesha yaqaan runtii waxay moodeen inaan sawirka laftiisa ka soo qaaday laakiin way sidaasan doonaynaa inaan ka dhigno insha Allah taala waynu la samayn karnaa marka 5 meelood baan xadidnay oo ah Birmingham waa Coventry Bashir ama Abdullahi Hussein dahabshiil Birmingham sorry Coventry Road sorry thank you dahabshiil Coventry Road Birmingham laba meelood baan ka cayinay Xasan Mooge oo u dhow Diamond iyo dahabshiil oo Bashir iyo Abdullahi Alam Rock oo ilmo shabeela Xasan Shabeel Stratford Road oo ah muxuu ahaa Cabdifataax Smithwick oo ah Cabdiraxmaan Caraale marka waxaan ku dhajinaynaa posterada buugaagtana waa u dhiibaynaa marka buug waa laba qaybood midlan guddida xubinta guddida ama xubinta dahabshiil bismillaahir rahmaanir rahiim labadaas oo lacagta way qabanayaan marka buugaagtana waxaan u dhiibnay muxuu ahaa dahabshiil meesha taas ku dhajisan tahay buugaasuna waa la yaalaa marka waayo waxaanu sidaa ugu talagalnay lacagtu waa lacag ballaaran dadku waa dad badan marka waxaan doonaynaa wixii inay noqdaan wax nidaamsan oo annaguna hadhow aanu xisaabino oo sidii ma garanaysaa aanu nidaam noocaas aanu samaynay runtii de wixii talooyinana waad nagu darsan kartaan mashruucaynu wada leenahay afkaartu weli way muxuu ahaa way soconaysaa runtii oo waa arrintu waa horaantii markaas waxaanu kaloo samaynaynaa waxaanu target garaynaynaa magaalada Leicester iyaga waa la shaqeynaa Coventry Bashir way ku soo soconaa waan la xiriiray oday iimaan iyo marka waa diyaar runtii marka hawsha saasan wada galeynaa hawlaha kale waxa kale runtii arin dhiirin weyn gelisay aniga laba arrimood runtii oo ah wasiirka ka socda ama wafdi ka socda Somaliland oo markii ugu horeysay inoola socda mashruuc wax qabad runtii su'aasha aad iyo aad baan isweydiin jiray waayo waxaanu arki jirnay wafdi aynu soo dhaweynayno oo aan mashruuc inoola socon oo aan wax kale inoola socon oo uunaynu soo dhaweynayno iska noqonaya laakiin wafdi inoola socda mashruuc intaasoo dhan runtii maraya waxa weeyaan runtii waxyaalaha qadarinteeda iyo soo dhaweynteeda leh ta kale waxaan arkay dareenka dadka runtii waayo bini'aadamku waa iska marmar gaabis baa iska jira markaan mashruuca aynu shirki kan ka horreeyey xoogaa gaabisa baa yimi waxaana dardargeliyey idinka dadka laftiisa runtii oo le waa arrintii waa lacagta naga hooya waa muxuu ahaa marka runtii waxaad halkaa ka arkaysaa dadku inay diyaar yihiin
mashruuca aad iyo aad baa loogu diyaar yahay aad iyo aad baan ugu kalsoonahay aynu ugu wada kalsoonahay in muddadii aynu qabsanay muddo yar oo ka yar inay kusoo dhammaanayso waxa kale oo xusuus mudan mashruucan waa dhowr fees runtii si aynu ka dhawaajinay hore kanu waa feeska hore markaad kan markaynu dhammayno inta waddadu soconayso waynu ka qayb galaynaa waynu socodsiinaynaa sidaasaan u dhisanaa insha allah waad mahadsantihiin تفضل بوك واحد تلا وضد عرقاوي كليا waxaa ku dareemay عرقاوي too dhaxaysay ma wadada عرقاوي ka baxda hadiyo goor waxa la yahaa wadada عرقاوي saasay anagu saasan khaalifina umurka maxamuud ismaaciil barre aad buu mahadsan yahay oo runtii hawl weyn oo wanaagsan maxay tahay ka haya hawshan iyada wuxuu ka hadlay maxamuud dareenka dadka dareenkooda ayaan maalin ka waraystay dalkii waxaan idiin dhiibayaa mar dhow nin inaga mid ahaa oo odaya oo ka yimid dalkii oo dareenkii iyo halkay marayso inooga warrami doona haddii ilaahay ka dhigo ayaan idiin dhexgeliyey haddii ilaahay ka dhigo nin baan waraysto maalina wuxuu yidhi dhallinyaradii aan shaqaynayna dhallinyaradii suuqa ciyaal iskuulka ahaa xitaa ayaa wuxuu yidhi waxaa jira nidaamkan saadka la yidhaaho dalkeenna galabtii markay isu yimaadaan imisaad maraysaa hebelow waddadii ceergaabo wallaahi maanta $4 baan ku shubay 300 bay gaadhay markaan $4 caawa ku shubay 300 baan maraya adigu waan kaa dheereeyey halkaasay maraysaa dhallinyaradii dalka oo dhan sidaasaa dalkii ay magaranaysaa dareenkii waddadaas u soo jiitay runtii waxaan u yeedhayaa khaliif xinwaalo oo inoo yimi oo ka mid ah reer Birmingham ahaa dalkii ka soo noqday بسم الله الرحمن الرحيم كميتيغا جاليدا بيرمنغهام waxaan ku salaamay islaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh runtii de waxaan islaanu facekii labaad baa marayaan Birmingham haday tii koowaad tahay dadkii waynu ka dambeynaa wadankii hadaan ka warramo aad iyo aad baa loogu nabad qabay nimca ku sugnayd alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta waxay raacda maanta wadada aynu ka hadlaynaa waxay maraysaa meeshii ugu wanaagsanayd dhammaan bulshada Soomaaliland qayb kasto ay ka midi way ka qayb qaadatay haday yihiin ardayda aynu imika ka hadlaynay haday yihiin ganacsadayaasha haday yihiin haweenka haday yihiin dhalinyarada cid aan wadada aan u heelaynay ma jirto waana wado midaysay shacabka Soomaaliland inta waxa raacda anigu waxaan ka sokay 2 cisho magaalada la yiraahdo Burco ama Soomaaliland ardayda Burco ee dugsiyada dhexe waxay dhiibeen wiig ka hor $62,000 oo facekii hore qura kuba joogaan 62 kaas wiig kasta waxa iska ururiyaan lacagta aynu saaca u qaataan inay safe gareeyaan ama 2 bi ama 2 senti aan yiraahdee kii $1 helayana saadkaas ku shubaa kii $1 helayana saadku ku shubaa waxa ay ku khasbeen in waalidkooda aynu saacaha ilaaha loo kordhiyay si wadada ceergaabo ugu dhisaan marka maanta halkaas maray waa kuwii ugu liiteen inuu saaca la siinay dadka kalena hadalkooda daa islaantii wadada fadhiday tii tamaadada iibinaysay qof kasta oo Soomaaliland maanta ku noolay bariye galbeedba wuxuu diyaar u yahay inuu wadada ka qayb qaato oo aan cidina isku khilaafsanayn inay tahay halbowle kamida Soomaaliland oo wax weyn dalka iyo dadka u taraysa taa waxa raacda wadadanu dhamaaha wada uu aynu dhisayno waxaynu miisaameynaa qarannimadeena iyo awoodeena iyo cududeena waxa ay qaban karto hadaynu taa maanta ku guuleysano waxa hubaala inaynu wax inta ka badan aynu dhisan karno haday iskuulo noqoto iyo haday goobo caafimaad noqoto iyo haday goobo adeeg bulshada aba noqotoba wadadana waa wado aynu maanta isku tijaabinayno sidii aynu u dhisi lahayn ee aynu kartideena u muujin lahayn ee caalamka ama ummadda kale inala midkii inugu dayan lahayd marka waxaan leeyahay reer Birmingham waxa tihiin community-ga labaad ee ugu ballaaran UK maanta in la yiraahdo 150kii ugu horeeyay ayaynu maraynaa ma ahayn waxay ahayd in la yiraahdo tii labaad baynu maraynaa marka fadhiga ka kaco
meesha ay ardayda iyo ciyaalku ka uruurinayaan doolarka ee ay fayskii hore iyo kii labaadba dhiibeen ee ay wiig kasta gurayaan dee maanta waxay ahayd idinku oo maanta qurbo jooga oo ka jeebrooni inaad sii bixisaan 150 kii saddexaad idinku soo galo marka waxaan odhanayaa fadhiga ka kaca aynu wax wada qabsanno wadadaasuun maahay wadooyinka kale ee jirana waa mid ummaddu isku xidhanto maalinba mid la kicinayo laakiin tan waxay kaga duwan tahay waa wada qaranka oo dhan kulmisay oo la isku tijaabinayo oo ummadda u dhaxa oo ummadda isku xidhaysa oo halbowleyn oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaliif xiin waal aad iyo aad buu mahadsan yahay weli daawadayaal waxaad naga socotaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan kun waana barnaamijkeenii daahir iyo dalkooyo xafladina weli sidiis ayay inoogu socotaa waa ku jirnaa tvga oo la socda hadda ya hahey cumar xaaji nuur waad soo dhawaanaysaa cumar xaaji nuur ila soo dhaweeya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وحا في عن مركز وحقبان يسو داد مسلمين نهاي هذه يتعرين أد وحكو بيس كرايسو بل هالكاد آيات دادو دليشان يسو وحاد قبان يسو أما حديث كادو دليشان يسو إن آد هشو آد أي مهم وطاي ويو وحانوغ هاي inaynu dad muslim nahay oo aad iyo aad diintooda u jecel kuna dhaqma waxaa jira xadiis oranaya isaalat al-adaa an dariiq fahiya sadaqa waxa weeyaan inaad wadada la marayo ee xayawaanka iyo bisadaha iyo xitaa bahalku marayo inaad ka qaado xashiish yaroo yaala oo aad ka dhigto meel la mari karo sadaqad ayay ku tahay waa qofkii bixiyay waayahay intaynu islaana dhagax ka gura inta u dhaxaysa burco iyo ceerigaabo intaynu islaana hagaajiya waxa weeyaan waxa filayaa waa wax aad u weyn waxa idaa'ul yani izaalat al-ada waxa quruurux laga qaado bay u dhigan tahay intaynu isleenahay wada geed ka gooya oo dhagax ka qaada oo buur aan laga talaabi karin ama doox aan laga talaabi karin si looga talaabo ka sameeya marka taasi waa mid ilaahay nagu anfaco wadadu runtii muhiimadda ay leedahay waxaan filayaa inuu qof waliba inuu ka dheregsan yahay horta mid weeyaane markaas nation markaynu nahay wadan markuu yahay inaynu wax wada lahaano oo wax wada qabsano waxay tahay shayga kaliya isku keen xidhaya ee bulsho weynta adduunka kale aynu iskaga dhawaanayno way hadaynaan wax wada qabsanin ama aynaan wax wada lahayn muxuu macnaheedu yahay no waa inaynu interes aynu wada leenahay oo aynu wada eeganayna waa inuu jiro marka horta kan waa maslaxad aynu wada leenahay waa interes aynu wada leenahay waa inaynu marka aynu sidaa u fahamno oo meelihii hore laga dhawaajinaya ama gobolaysiga ama waxyaabahaas aanay waxba raad ku yeelanin kow مثلا wadada casriga ama wadada la mari karaa waxay isu soo dhaweynaysaa dadka adeega loo qabanayo kow waxay soo dhaweynaysaa in ay gobolka ay khayraadka ka soo baxa inuu gobolka kale isagoo oo koskiisu yar yahay inuu degdeg u gaari karo adeega meel lagu hayo ka kale aanu lahayn inuu hore ka gaari karo si hawl yar inuu u tagi karo xataa adduun weynaha dhulka 80% in ka badan ayaa transportka dhulka guud mara marka ahmiyadda ay leedahay waa ka garan karaa xagga safety-ga ayay aad iyo aad wadadu muhiim ugu tahay waxaan filayaa waa wada xasuusanaa مثلا shilalka foosha xun ee ka dhaca wadankeena oo igu wacan tahay wada xumidu anigu marmar maamul xumidana oo ah adeega wadada xumida ayaa waxna waa ka sii saaraa qayb ay ka tahay marka waad ogtihiin sida safety-ga ay qayb uga ciyaarayso sidoo kale in lagu soo booqdo oo dadka aan adiga wadanka kula lahayn ku yimaadaan aad bay muhiim u tahay oo ay magaalooyinkaaga ama waxa la yiraahdo tourism ay magaalooyinkaaga u kala dhex socon karaan oo de meeshii inantu tiri 15 saacadood baa loo kala socdaa nimaan wadanka kula lahayn kuna soo booqan maayo 15 saacadoodna ku kala socon maayo laba magaalaad leedo 15 saacadood isu jira
laakiin wuxuu doonayaa magaalo loo kala socon karo 3 saacadood 2 saacadood taasina aad iyo aad ayay muhiim u tahay marka waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaabo aan la soo koobi karin oo markay tahay wadadu dhaqaaliha ay wadanka ayaa ku xidhan sidoo kale wadada sameynteedu waxay samaysaa jiilal dhan oo professionalism haddaanad weligaa wada dhisin ma oran kartid wadaan aqaana sida loo dhiso laakiin wadadu markay dhisanto ama hawsha la qabto waxay ka soo baxaya maalintay dhamaato intaas oo qof oo yaqaana khibradii wadada iyo sida wadada loo dhiso oo kuwa kalena dhisi doona ayaa ka soo baxaya laakiin haddaanad weligaaba wada dhisin waxay ka dhigan tahay maba taqaanidba sida loo dhiso marka yani professionalismka uu dadku baranaya ama xirfadahoodana aad iyo aad ayay uga qaab qaadanaysaa okay taasi waa intaa waxaan in yar ku darsan lahaa halkii aad sidaad u qaybiseen aad iyo aad baad runtii de waad hawl gasheen oo waad sheegteen waxaan filayaa inaad taargetkana dadka u raacisaan oo in muddada isleedihiin lacagtu ha ku soo hoyato in loo sheego ma 6 biloodba ma sanadba intay tahay kow lacagtu ilaa waxa laga yaabaa sidaad ilaa 1,000 pound ilaa 100,000 oo pound sida aad u qaybiseen aha madaxka kow iyo kow 6 bilood inaad noo sheegtaan okay weliba 6 bilood weliba in dadka mar walba la update gareeyo aad ayay u fiican tahay marka waxaan filayaa midda kaliya aan qolooyinkii hore ku sii taageeraya waxa weeyaan waynu samayn karaa we can do it runtii waa samayn karaa $150,000 waynu raise garayn karaa aan ku dhaqaaqno weliba good follow upna ha la sameeyo aan kulligeedna ka wada qayb qaadano aad ayaa ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay cumar waxaa isna mahad gaara mudan khaliif oo runtii warbixin wanaagsan naga siiyey halka dareenka uu marayo dalkii qaybtii hore waa gabagabaan filayaa wax yar baa inoo hadheen kusoo xidhayno oo waxaa inoogu dambayn doonaa inoo soo xidhaya qaybtaa aadan saalax baa inoo soo xidhi doona haddii ilaahay ka dhigo waxaan ka horraysiinayaa 2 qof baan ka horraysiinayaa qura waxaan u yeedhayaa maxamuud raagaan u yeedhayaa xaggii dumarka fariin baa iyadana iga timi in yar waa sugaynaa iyagana بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دردارا بدن بابحي وحال يسوي ما وضو وحان ugu muhiimsan aayadii quraanka ee walaalkii Mustafa uu akhriyay ya ayuha alladheena aamanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqad ya shiiqu mu tafsiirin nafta la hadlaya waa nafeena waxaad naf walbana ha fiiriso oo ha ka fikirto waxa u qadibanayso barito waxa muhiim ah qofka la hadlaya marka waa inagoo dhane barito waa tuma ina taa aad maye waxaan dhiibayaa cabdirasaaq xiis بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynahan soo xaadiray yimi shirkan mar labaadka runtii anigu markii hore 2 page baan sitay anigu waxaan rabaa inaan barnaamij ka hadlo sida loo ururin karo lacagaha ama mashaariicda noocan oo kale sida lacag loogu ururin karo waxaan aaminsanahay inaynu 20 bilyan oo dollar sanadkii si sahlan u ururin karno haddii la ka dhigo laakiin sidee iyo halkee laga ururinayaa waa arrin u baahan sharaxaad marka halkan kuma soo koobi karno waxaa jiray idinka kaftan idinku dare wadaad baa bari ceergaaban ugu yimi galbeed ka yimi marka waxa wadaad diinta aqoon u leh dabeedna mas'ala diiniya ayuu soo dhiraandhiriyay oo faahfaahiyay markii dadku dhiga u wada taageen ee damceen inuu u sheego ayuu wuxuu ku yidhi arrintaas waxay ku xidhan tahay go'shaala weey go'shaala way ku xidhan tahay marka waxa arkay odayaasha dadka reerka go'shaala wada sita marka hore haddaan ku noqdo sababta maxaa keenay jidkan in madaxweynaha jamhuuriyadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu dhagax dhigo waxa keenay
jidkani waa jid aad u muhiim ah runtii gobolka Sanaag wuxuu ka dhigay ama wuxuu ka dhigan yahay geeri iyo nolol anigu waxa ka mid ahay dadka gobolka soo jeeda ceergaabo ayaan ka mid ahay waxay keentay dadkii qurbo joogta reer Sanaag inaanay gobolka wa tagin anigu laba jeer baan waddanka tagay wali ceergaabo ma tagin goor ugu dambeysay garanay waqti fog ugu dambeysay marka waxaad halka ka dareemaysaa gobolkan inuu galay go'doon buu galay dadkii reer ceergaabo qaarna waxay u guureen Boosaaso qaarna waxay degan yihiin Hargeysa imka hadda Hargeysa tagto dadka ka buuxay dadka ay moodayaan reer Hargeysa waa reer Sanaag weeyaan marka waxaan jecelnahay haddii ilaahay ka dhigo jidkan hadduu dhismo inaanu dib u noqonno oo gobolkii aan ku noqonno haddii ilaahay ka dhigo marka haddii jidkaasi dhismo oo gobolka lagu noqdo waynu ogaan doonaa Hargeysa waa cidloobaysa haddii ilaahay ka dhigo runtii jidkaasi geeri iyo nolol sidaan sheegay weeyaan nasiib darrada kale ee jirta waxa weeyaan dadka intii ku hadhay gobolka ama ceergaabo ku hadhay markay xanuunsadaan xagga la keenaa waa la soo qaadaa ceergaabo dadka anu geeridooda maqlo dhab xagga ku dhintay bad malanaysa ceergaabo ku lagu wada aasay Hargeysa dadka intii hadhayna waxa la keenaa markay xanuunsadaan oo loo soo qaadaa Hargeysa marka arintaas waxay noqotay runtii gobolkaasi yani gobol go'doon galay weeyaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha oo ku dhawaaqay runtii soo gaabi waa leeyahay mawduucan ku talagalay kama hadli karo maanta waxaan jeclahay insha Allah taala in mar kale ama mar faahfaahsan baan anigu si shakhsi oo gooni uga hadli doonaa sidaynu mashaariicda noocan oo kale aynu uga qaban karno waxaan aaminsanahay haddii muddo reer Soomaaliland ilaahay wuxuu ina siiyay dhammaan asbaabta ay madax ku qabsan karto oo dhan haddii fahamsanahay haddii kale ilaahay wuu ina siiyay insha Allah taala waxaan jeclahay waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha cidii ku hawlan wasiirka madaxtooyada oo ay hoos yimaadaan jidadku hay'adda jidadka Soomaaliland iyo maareeyaheeda injineerada cid walba hawshan qayb ka qaadanaysa gudiyada kala duwan ee arrimahan ka qayb qaadanaya gidigood waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa anoo ku hadlaya magaca reer Sanaag ama reer Sanaag dadka reer Soomaaliland ee arrintan runtii niyad wanaag muujiyay aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadsan yihiin waayo haddaynu niyad sami la nimaadno waxaanu helaynaa maxay wadajir haddaynu helno waxaanu helaynaa wax wada qabsi haddaynu wax wada qabsi helno waxaanu helaynaa wax qabad wax soo baxaya marka intaas ku soo koobaya billahi tawfiiq wassalaamu calaykum wa rahmatullahi aad buu mahadsan yahay Cabdirasaaq oo doonaya inuu debate badan sii galo runtii qaybta labaad waad ka qayb gali karaysaa mar labaad haddii ilaahay ka dhigo Kichandi haddii reer Burcana ka tagaan Hargeysa ka waran waxaan ku soo xidhaynaa qaybta hore odayga guddida ka mid ah oo odayaasha magaaladana ka mid ah runtii injineer aadan saalax maan soo gudbinaya haddii ilaahay ka dhigo oo inoo soo xidha qaybta hore بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u wanahay daahirsaga suuq qiyaasay bahalka xarigan meel ba gaari maayo daahir waa sida bahalka hadalkii waa la dhameeyay xiis baa ugu dambeeyay wuxuu yiri reer Hargeysa waa soo guurayaan marka wadada la dhiso dib baa loo noqonaya reer Hargeysa soo noqonaya xaggan halkan la istul fuushay Gabiley iyo Hargeysa iyo waa laga wadadaas oo kale markay wadada helaan wadada waa wada aragtaan soo wadada ma aragtaan waa la soo guuraya dadku waa soo noqonaya wadadaas la soo raacaya laakiin reer ceergaabana mid baan uga digayaa deetana in bari jiray reer ceergaab wardaahir oo tusbalay tahay maraan marka taa ay imika maraan waxaan uga digayaa inay ku wada qalibmaan oo ku yaray socdaan bal u sheega reer ceergaab wadada loo sheego waa soo gaabinayaa waa farduusna waxaan oranayaa balanina hagbad noo soo dayday ilaa way idinka naga dheereeyay waa bal hagbada aan ogaano dee dumarkii faanka waa arkaysaan iyo halka laynala maraye balinina waxay noo baarbaara haddii ilaahay ka dhigo waynu ku dhaqsanaynaa 6 biloodna waa ka horeynaynaa bil gudaheeda ama 2 bilood gudaheed bay insha Allah aynu ku dhammaynaynaa hadalkiina waxaan ku soo gaabinayaa maxay heesti ilaahayna qadin maayo taariikhda way qor ilaahayna qadin maayo soo maaha qabiya tira dariiqeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay ilaahayna qadin maayo qabiya tira dariiqeena
qaybtii labaad ayaa inoo bilaamaysaa waxaan ku wareejinayaa daahir ayaa idinla dhex maraya tvgeennii qaranka maxamuud jaamac ayaa ugu horeeya tvgu daawadayaal sidaad la socotaan weli waxaanu ku jirnaa barnaamijkeennii daahir iyo dalka hooyo oo aanu maanta ku qabannay magaalada birmingham xaflad aad u ballaadhan oo halkaasi waddada gobolka togdheer burco iyo gobolka sanaag lacag lagu urinayey markaasi bal dadka ra'yigoodii ayaan weydiinaya qof waliba wuxuu ka qabo maxamuud jaamac oo isagoo ka mid ah odayada magaalada birmingham maxamuud bal adigu seed u aragtaa fikraddan maanta halkan ku hayno fikraddan waa fikrad aad iyo aad u wanaagsan waddankeennu wuxuu u baahan yahay infrastructure wax la idhaah waa nolosha asaasiga waa iskuul waa waddo waa cusbitaal waa warshado wixii waynu ka aradannahay cidina waxinama siin waxaasi waxay u baahan yihiin imminka tallaabadan ceerigaabo iyo barco waddadani waxa weeyaan waa testing weeye qarannimadeenniiba ayaa ku jirta tijaabadaasi waxay noqonaysaa inaynu ama ku feelgarowno ama aynu wax dhisanno oo ay noqoto inaynu noqonno dad wax dhisanaya markaa waxaan soo jeedinayaa waxaa la yidhi waxaa la idhaahaa werderise wilderise wey meeshii wadda jirto meeshii niyadi jirto waddana waa jirtaa haddii niyadi jirto waxan waynu qabsan karaa maantaynu qabsan karaa barnaynu qabsan karaa boqolaal waddaynu samaysan karaa laakiin niyaddii ayaa la doonayaa inaynu ka dhabayno insha allaahu waynaynu ku dadaalaa si aynu waddada iyo kuwo kaleba u dhisan lahayn intaa ayaan ku soo gebagabaynaya waana mahadsanta aad baad u mahadsan tahay maxamuud jaamac waxa uu fikraddiisii halkaasi ka dhiibtay ood arkaysaa siduu halkaasi uga dhiibtay kajandhe maxamuud kajandhe adigu maxaad ka qabtaa fikraddan waddadan maanta aynu doonayno aynu birmingham ku qabannay in loo ururiyo lacag waddadaa lagu dhiso waa fikrad aad u fiican haddaana wadda jirinna nololma jirto marka aad baan u soo dhowaynaynaa inaynu waddadan aynu ku xidhno dalka waa ka gadoon gobolka ceergaabo inaan waddada aynu ku xidhno waa fikrad aad u fiican oo dalka aynu magaranaysaa aynu ku xidhno dalka laakiin dhaliil kale ayaan u soo jeedinayaa maadaama aynu nahay bulshada somalilan dad waxay leeyihiin sumbad iyo wax u goona marka had iyo jeerba laba habeenoo halkan aan joognay waxaan arkay inaynaan sumaddii iyo calankeenan lahayn aanu ka muuqan meesha marka had iyo jeer waa aynu muujinnaa dhaqankii sumaddii aynu dadka kale kaga duwanadii iyo dalalka kale oo calankeennu had iyo jeer meesha aynu saarnaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeennii daahir iyo dalka hooyoon toddobaadka kan ku soo qaadannay xaflad aad u ballaadhan oo lagu qabtay magaalada birmingham xafladdaasi oo ahaa xafladdii dhaqaalaha loogu ururinayey gobolka togdheer magaalada burco iyo gobolkaasi sanaag waddada u dhaxaysa oo aanu maanta ku soo qaadannay sidii markaasi lacagtii loo qaybsan lahaa iyo sidii markaasi loo dhigi lahaa barnaamijkaasi daawadayaal waxaa aalaaba inoo farsameeya cabdiqani cabdilaahi cabdimataan anigoo daar ismaaciil xajaadana ayaa barnaamijkaasi idiin soo saara idiinana socodsiinaya taliya kuna keena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo